guda jirnaa casharkii uga hadlaynay data structure anigoo casharkii hore kasoo hadalnay list uga soo hadalnay casharkan waxaa uga hadli doona waxa loo yaqaano table. Tableka marka muxuu yahay marka tableka laga hadlaayo wuxuu similar leeyahay ama uu la mid yahay listiga aan soo aragnay, laakiin wuu ka duwan yahay. lama modify garay karo, wax laga bedeli karo. hadaa aragnay listigii hore value waxyaabahaas waxbaa laga bedeli jiray, laakiin kan wuxuu uga duwan yahay cannot be modified. waxa laga bedeli karo xogta la geliyaa, edit ama wax ka bedelid kuma sameyn kartid xogtaas. table marka la isticmaalayo waxaa la isticmaalaa waxa la yaqaano parentheses, calaamadan bracketka ayaa la isticmaalaa, halka listiga kusoo aragnay in la isticmaalayo square bracket. haddii aragti marka calaamadan iyadoo la isticmaalayo waxaa leedahay waa table. haddii aragti squarekan waxaa leedahay waa list. instead halka la isticmaali lahaa square bracketska oo listiga kusoo aragnay ay ku kala duwan yihiin. featureska uu leeyahay markaas tableka uu uga duwan yahay waxaa kamid ah kow waxa waa horta ordered waxa loo yaqaano. tableka waa ordered, xogta ku jirto hab order u taaganta waa sidii listiga hore oo soo aragnay. sidoo kale halkan wuxuu uga duwan yahay waa immutable waaye, lama bedbedeli karo xogta la geliyay. haddii aragnay listiga wuxuu ahaa mutable ayuu ahaa, laakiin kan lama bedbedeli karo xogta ku jirto. sidoo kale wuxuu ogolaadaa duplicateska haddii xog ay isku nooca ku jirto sida listiga oo kale. sheye isku eg xogteeda ku jirto ogolaanaya oo ma diidayo tableka marka joogo, halkaas waa iskaga mid listigii. sidoo kale wuxuu leeyahay index ayuu leeyahay, listigana index ayuu lahaa, tablekana index ayuu leeyahay. xogta wuxuu leeyahay address ayuu leeyahay oo index loo yaqaano. faster then marka wuxuu xagga speedka uga wanaagsan yahay listiga. xogta markii lasoo aqrinayo ama xog la geynayo oo kale uu ka fast speedka wuxuu kaga fiican yahay listiga. marka sanis maadaama marka sababta uu speed fiican yahay waxay tahay ama faster then uu yahay waa malaha change malaha, lama bedbedeli karo. waa xogtii hal mar ayaa la geliyey oo lama bedbedeli karo. taas marka waxay suurtagelinaya marka in uu ka speed fiicnaado ama uu ka degdeg badnaado listiga markaas. marka hadaa xog u baahan tahay oo speed badan, xogtaasna aadan ugu talagelin xog aan la bedbedeleynin, tableka iska isticmaaleysa. laakiin haddii xogta la bedbedelayo listiga ayaa isticmaali doonta. okay, marka aan soo aragno codeka halka marka tablekii waa uga hadlaynaa. saa sheegna marka wuxuu isticmaalayaa calaamadan bracketkan ayuu isticmaalayaa. waa sidii oo kale waaye, gudihii wuxuu leeyahay haddii aa integer aa rabtid iyo haddii aa string aa rabtid, qaabkii listiga u qornaa ayuunbaa loo qorayaa. marka tusaale waxaa variable colors ayaa meesha noo yaalo. waxaan ku darnay kalarada red, green, blue ayaa ku darnay, ayuu noo keedinaya marka colorska uu noo hayo variableka. marka wax soo daawacinaysid print colors aa leedahay, waa sidii listiga oo kale. halkan waxaa wacanaysaa indexka ayaa wacanaysaa. kan wuxuu haystaa index 0, kan wuxuu haystaa index 1, kan wuxuu haystaa 2. marka haddaan dhahno print colors waxaa noo soo baxayo green ayaa noo soo baxayo. aan testi gareyno oo ran gareyno si marka uu noogu soo baxo outputkan. marka waa sida halkan wuxuu iskaga sameeyaa qaabkii aan listiga usoo aragnay oo keliya. haddaa fiirino oo kana marka green ayaa soo baxay, halkan waxaa soo baxay slicing ayaa isticmaala. markaan waxaa lahnay hore usoo aragnay listiga kusoo barnay. haddii marka calaamadan la isticmaalo labada dhibcooda oo tu la dhaho, waxay ka dhigantaa marka in xogta meesha ku jirto labo, kan wuxuu taagan yahay 0 1 2. markaas waxaan marka ilaa 2 soo daabacana. marka meeshan ka bilaabanaya 0 ilaa 2 meesha ku eegaya xogta ayaa lasoo daabacayaa. haddaa fiir marka meesha waxaa ku qoran marka red iyo sidoo kale green. red iyo green marka waxaan kusoo sheegnay listii shayga. marka haddaa meeshan aan sheegno indexka haddaa gelino
shayga aad rabtid soconka hadda wuxuu green ku ekeysiiyey sababtoo 0 1 2 2 ayaa sheegtay marka shayga aad sheegtid lama daabici doono shay ka dambeeya ayaa la daabici doonaa marka kanoo kale arabno waxaa sii leynaa halkan 3 oo kale leynaa marka ilaa meeshas dhan soo daabacaya marka kan waxaa kusoo aragnay habka slicingka listiga ayaa kusoo aragnay marka dhammaan inaa wacti rabtidna waxaa leedahay print kale ayaa leedahay print marka dhahno function marka u wacno waxaa wacanaa variable keeni oo ahaa color markaas variable colorska u wacanaa kadib marka square bracket ayaa leenahay haddii aadan dhihin oo intaa bisa u deysid intaa hadda index ma u baahin intaa bisa taadhaano variable colorskan hadaa wacno aan rengareeno dhammaan waa la soo daaca markaas red green blue laakiin index markaa isticmaalaysa marka qaybo ka mid a xogta aad rabtid ayaad dooranaysaa square bracket tableka marka goormee la isticmaalaa marka tableka waxaa la isticmaalaa marka aad rabtid qiimaha ama xogtan shayadan listig uu hayo in aan la bedelin xog aan rabin in la bedbedelin ayaa la isticmaalaa table ahaan loo isticmaalaa sidoo kale markaad ka taxadaraysid daatada in edit lagu sameeyo oo daatada in wax laga bedelo aad diidan tahay ayaa markaas waxaa la dhigaa table laga dhigaa marka tableka markaas ayaa la isticmaala marka aad rabtid xogtaadan ama daatada inaadan edit lagu sameyn oo wax laga bedelin oo data unique ah aad rabtid ayaa la doortaa markaas tableka markaas inta badan waxaa marka loo isticmaalaa marka ku wanaagsan tahay marka tableka waxay ku wanaagsan tahay xagga performancega large markaas daatada si marka daato weyn waxyaabahaas oo kale loo baahdo ayaa la isticmaalaa maadaama ay faster ay tahay listi ay ka wanaagsan tahay marka waxaa gudbaya marka wax loo yaqaana sit ayaa gudbaynaa sitska muxuu yahay marka sitska marka laga hadlaa isagana waa sida listigii ku hadda tableka kasoo hadlayna waaye laakiin waxbuu kaga duwan yahay sit marka laga hadlaayo waa collection of item waaye waa itemyo shayo laisku soo ururiyo waaye si listigii iyo tableka hadda kasoo hadalnay kuwaasoo marka each itemiska marka item kasta oo kuwaas ku jiro uu yahay unique uu yahay farqigu kaga duwan yahay labada kale hadda soo aragnay waa unique shay kasta shaygaas keligiisa ayaa iska leh laba shay mise la soo geli karo markaas inaad sits aad samaysid aad rabtid waxaa la isticmaalaa waxaa loo yaqaana curly brackets ayaa la isticmaalaa calaamadda ayaa la isticmaalaa waa loo yaqaana curly bracket halka marka la isticmaali jiray calaamadda squareka ahayd orama sidoo kale waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaano wuxuu leeyahay function loo yaqaana sit oo noocan ah ayuu leeyahay sit function ayaa la dhahaa ayaa la isticmaalaa ama kana isticmaalaysaa curly bracketkan oo list ahaan ama function ahaan waxaa isticmaalaysaa sit functionka astaamaha uu leeyahay markaas sitska waxaa kamid ah waa unordered waxaa laga wadaa labadii hore hadda soo aragna waxay ahaayeen ordered waa kan laakiin farqi ugu duwan waxay tahay unordered waxaa laga wadaa xogtan wax ordera ma laha oo hab iskala horeyn iskugu xigto ma laha markaas sidoo kale waxaa waaye labada hore waxay uga duwan tahay no duplicate waa xog soo laalaabanayso ma jirto xog kasta waa unique hal shay bisa ku jiro laba shay oo isku valuega meesha ma soo wareegeli karaan sidoo kale waxay tahay waa mutable waaye mutable waxaa waaye waxbaa laga bedeli karaa kii hadda aan soo aragnay sitiska kii hadda tableka aan soo aragnay waxay tahay waa immutable oo ahaa waxba laga bedeli karin xogtii oo sidaa usoo gelinayo ahaa listiga laakiin hadda kan waxay iskaga saman yihiin listigii ay halkan ka saman yihiin oo mutable ay wareeyihiin markaas waxaa laga bedeli karaa sidoo kale no waxa waaye indexing waa wax index ma laha haddaan aragnay labadii hore aan soo aragnay waxay lahaayeen index ayay lahayd kan laakiin waxa waaye no index wax index ma laha oo hadda marka value ku jiro index ahaan ma laha sababta haddii index yeesho wuxuu noqon lahaa order ayuu noqon lahaa marka maadaama unordered uu yahay shaygan waa no index markaas wax oo addressa oo unique ad ahaan ma laha markaas index ma laha marka sitiska marka laga hadlaayo waxaa la isticmaalaa marka inta badan remove duplicate marka xogtan waxyaabaha soo laalaabtay in laga saaro ala rabo inta badan data analysis marka la isticmaalayo waxyaabaha soo noqnoqday oo kale marka xogta waa laga saaraa
oo xogta in la kala shaandheeya la rabo. Sidoo kale waxay ku wanaagsantahay waxaa loo yaqaana fast check in xogtan si dhaqsa marka loo checking gareeyo oo checking lagu sameeyo ayaa loo isticmaalaa. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa marka mathematics xisaabaadka la sameynayo operation xisaabaadka marka la isticmaalayo ama shay groupyo kooxa xoga in la isbarbardhigo marka la rabo comparison group oo xisaab marka in isbarbardhig lagu sameeyo la rabo ayaa la isticmaalaa setiska markaas. Sidoo kale fast checkska hadda aan sheegnay waa loo isticmaalaa si aad aragto marka itemyada hore u jiray exist itemska isa u aragto markaas. aan aragna markaas uu qoran yahay marka koodkiisa tabelkaas ka laabno. Settings marka imaano waa kana marka asana waxa waa calaamada la isticmaalaa waxay isku calaamada iska shabahan dictionary-ga arki doono ay iska shabahan marka labada hore uu ka duwan yahay curly bracket ayaa la isticmaalaa. Marka soo aan kala waxaan soo qornay variable numbers iska soo gaabinay kadibna waxaan ku list gareynay nambarada marka. Marka waa soo daawacnay nambarada hadda print aan hano way noo soo baxay markaas hadda fiirno hadda nambarada uu ogol yahay 22 hadda laba waxa ku jiro shay oo isku qiimaha ku jiro uu ogol yahay. Marka asayna inta badan waxa la isticmaalaa marka xogta inta badan oo loo rabin waxyaabaha duplicate waxyaabahaas ayaa aad loo isticmaalaa. waa arki doonaa markaas oo casharada soo socda ku arki doonaa laakiin inta soo gudbina marka sharaxaadiis farqi uu kala dhaxeeyo kaliya inaad baratid iyo waxyaabahan ayaa muhiima bracketyada u isticmaalo inaad baratid markaas.